Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada asxaabta dhammaantiina. Maanta halka aan joogno waa guri lagu martiqaado insha Allahu tacaala oo meesha qayb ka mid ah oo shaqada waaye. Waa islaan insha Allahu tacaala waxaana buugaag waxbarasho dhan ayay aad iyo aad u soo dhameysay. Anaga meesha aan ka soo baranay 4 buug iyo 5 buug laakiin dadkan waxay soo barteen wax bay soo barteen. Okay, sidee bay wax ku soo barteen? Waxbarashada ma kala dhahayo waa dawlad, nidaam iyo system. Dadkan waxay leeyihiin system iyo nidaam ay hadda ku soo koreen. Anaga maanta dawladeena hadday jileed Maxamed Siyaad Bare aba Maxamed Siyaad Bare maanta anaga horumar waa gaari lahayn. Waxbarasho ha dhihin, wax walba ha dhihin, aqoon ha dhihin, cilmi ha dhihin, maanta horumar aan gaari lahayn. Maanta halkan waxaan soo istaajiyay waa qabiil, bakti, qurun, dawlad la'aan, iska hadal iyo micindaro. Maasha Allah. Okay. Waxaan samayn doonaa buugaagtaan insha Allah taala aad u tiri badan yihiin. Laakiin hadda kadib waxaan sameynaynaa xabad ayaan buugaagta usoo kala qaadan doonaa insha Allah taala. Buug kasta wax muhiim ah ka hadlaya. Buug waxaa jira oo ka hadlaya isdhexgalka bulshada. Qaabkay wax u baran karaan insha Allah taala. Hal aan soo qaadayna. Aad soo hab waa ku faraxsanahay in islaanta maanta duqda waa yeeshay qolkeeda igu xasilto aad iyo aad ugu faraxsanahay.